digil ma dagaalamo digil waa sidaas war digil waxaad ogtihiin digil wiligiis lama adoonsanin bal Soomaaliya iska daayay digil in la adoonsaday Soomaaliya u diiday in la adoonsado laakiin digil waa dad nabad jecel digil waa dad maxaan ku yiraahdaa dad dandaansanan waa digil dad maxaan ku yiraahdaa dawladnimada laga soo gaaray weeyaan dad kuma degdegaan oo meel walba aan joogno qofka nagu soo xadgudba anaga cidna kuma xadgudbeeno cidna maxaan ku yiraahdaa dhulkiisa dhicmeeno cidna weerar ku qaadimeeno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala mab'uth rahmatil alamin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in magacayga waa Muuse Maxamed Cabdullaahi areye hore garoonka Elboorka Baraawe maanta shirkan meeshan iskugu imaanay waa ay ka tashi waxaan ku yiraahdaa guud ahaan maaragtay deegaanada degta digil marka saas darteedna waxaa idin sheegayaa in aan noqono dad mar walba oo ka shaqeeya danahoodii iyo aayahooda mar walba ka hadli kara inaan noqono dad maskaxdii iyo aqligii inaan xor ka noqono oo u baahano xilli kasto in deegaanadeena aan ka hadalno aan ma aragtay dadkeenana wacyi gelino aan u sheegno in ay leeyihiin deegaano oo ma aragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku maneestay saas ay tahayna difaacoodii iyo ma aragtay qarankoodii iyo deegaankoodina inay difaacdaan mar walbana ma aragtay u taaganahay waxaan dhihi lahaa dhammaan reer Awdigil meel kasta joogaan wasalaan waxa idin kugu soo gudbinaynaa magaalada Muqdisho marka in arimahan oo digil ah socdaan inaad ka qayb qaadataan waxay idin ku noqonaysaa waajib ma ahana sunno waxay idin kugu noqonaysaa waajib sababtoo ah maanta qof digil dhibaato haduu gaaro in adigana dhibaato ku soo gaartay amal ay u dhigan tahay saas darteedna waa walaalkaaga inaad u danqantaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam sheegay al muslimu kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'd muslimka waxa weey qofka muslimka ah waxa weeyaan waa sida derbi amal weeyaan hal dhagax ama hal bulkeet haduu ka dhacana maxaan ku yiraahdaa derbigaas uu dumaayo digilna inuu iskugu yahay sida derbigaas amal oo maxaan ku yiraahdaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu sheegay nabi sallallahu alayhi wa sallam inoogu sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu inan isku xirnaashadana ay tahay waajib ay tahay qofka muslimka ama qof walaalkaaga inaad ka danqatid waxay kugu noqonaysaa waajib hadii aadan saas noqonin oo qof danqanahay maanta aadan noqonin berito waxaad noqonaysaa qof dayuus ah maanta wax walba laga sameesto adduunkana qiimo ku leheen aakhirana qiimo aan ku leheen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma aragtay cadaabtiisa ka mutaysanay sababtoo ah annaga hadaan nahay ma aragtay digil hadaan nahay deegaanadeeni annaga inaan ilaashano aan difaacano aan iskugu yeerano meel kasta aan joogno shirarka la qabanayo oo digil qabanayso inaad ka qayb qaadatid ama af ahaan ugu qayb qaadatid ama kulan hadaa joogtid inaadan wax kale ku marmarsiyoonin aad imaatid waxay kugu noqonaysaa waajib hadaa imaaweysadna hadhoodi bari ka maalan digil baan ahay micnaha afka aad ka sheegatid waxba ma sameynayso marka qof waxa loo baahan yahay inuu maskaxdiisa xur tahay aqligiisa xur yahay jir ahaan xur yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala xur ka dhigay xurnimo inaad ku noolaatid marka saas darteedna waxa loo yiri kun fa inna allaha yani maxaan ku ilaa xurun yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala xur ayuu ka dhigay adigina inaad xur ahaatid Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonnimada kugu yani kaaga dhigaya marka saas darteed waxa loo baahan yahay inaan kacno deegaanadana u kacno deegaanadana aan difaacano gobolka Shabeellaha Hoose ilaa Dooy aan difaacano oo meel walba aan joogno qofka nagu soo xadgudba anaga cidna kuma xadgudbeeno cidna maxaan ku yiraahdaa dhulkiisa dhicmeeno cidna weerar ku qaadimeeno laakiin deegaanadina in anaga xur aanu ahaano aan difaacano oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu maneestay qof walbana Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel ku maneestay marka saas darteed deegaanada Ilaahay kugu maneestay oo ku siiyay hadii aad ilaashawaysid oo aanba ma aragtay aad difaacawaysid dad kale imaado ku difaacad sababtoo ah hadda Baraawe waad aragteen dhibaatada ka taagan waxa weeyaan lafta gareen inuu ciidamo ku daldalaayo mar walba uu leeyahay ana raba inaan ku xureeyo oo deegaanadiisna asagan xur aan uusan ahayn anaga deegaankeena xur yahay oo maanta nabadgelyo amniga ma aragtay ku jirta Baraawe wiligeeda kama dhicin xilligii xitaa Maleeshiya beeleed ama Maleeshiya kooxeedka oo ka jireen Baraawe ama Shabeellaha Hoose ama Soomaaliya guud ahaan ka jirta Baraawe wiligeed kama dhicin kufsi inuu ka dhaco Baraawe kufsigii labaad uu ka dhacay oo lafta gareen ciidanka Maleeshiya beeleedkiisa geystay oo maxaan ku yiraahdaa dhibaatada deegaanka ku haya maanta 1 iyo 2 aan la dhihi karin deegaanada guud gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan hadda meesha caasimada ku magacaabeen caasimadana ma ahe marka sida ayaga sheegaan
marka saas darteeda kufsiga Baraawe ka dhacay oo maxaan ku yiraahdaa deegaanadeena maanta dagaal ka dhacay oo dagaalka maxaan ku yiraahdaa labaad mid saddexaad ka sii dhacay marka waxay leeyihiin maxaan ku yiraahdaa dadka deegaanka ama digil ma dagaalamo digil waa sidaas oo digil waxaad ogtiin digil wiligiis lama adoonsanin bal Soomaaliya iska daayay digil in la adoonsaday Soomaaliya u diiday in la adoonsado Soomaaliya gobonimo doonka u keenay maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya u diiday iska daa asagana isku diiday Soomaaliya u diiday in la adoonsado oo maxaan ku yiraahdaa oo ma aragtay xoreeyay oo gobonimo doonka ma aragtay ahaa oo fikirkii aqliga iyo keeneen waad ogtiin Maxamed Usmaan Baarbe oo Maxamed Shaqaawdiin waad ogtiin Cabdiqaadir Sheekh Shaqaawdiin waad ogtiin gudoomiyii ugu horeeyay gobolka Banaadir waxaa noqday nin digil ah oo maxaan ku yiraahdaa la dhahay nin digil maanta lii keen nin tuni halii soo raadiya halii keeno markuu baxay Cali Umar waa la yiraahdaa marka Talyaani Soomaali ka tagaayo ninkaas ali keenu yiri ninkaas muxuu sheegay nin marif la keen muxuu dhii waaye ama ninka soo jeedo heblo marka baay boqol marka muxuu dhahay nin digil ali keeno oo tuni ali raadi muxuu dhahay way og yihiin waxay gooyaan digil haduu kacana cid cili karto Soomaali dhan ula dagaalami kara ma ahan marif la ambo habiye ambo wax daran la dagaalami kara Soomaali dhan ula dagaalami kara deegaanadiisina ku filan yahay laakiin digil waa dad nabad jecel digil waa dad maxaan ku yiraahdaa dad dandaansanan waa digil dad maxaan ku yiraahdaa dawladnimada laga soo gaaray weeyaan dad kuma degdegaan balse laakiin hadii ma aragtay la taabto oo maxaan ku yiraahdaa oo meel walba laga taabto oo meel walba laga qodqoteeyo waxa weeyaan taariikhda dhigaa waa la yaqaanaa walaalayaal waxa idin sheegaya digil meel kasta joogan inay kacaan oo deegaanadoona difaacadaan waajib buu kugu yahay qofka magac digil sheeganay waajib bay kugu noqonaysaa hadii aad imaaweys shirarkan ka soo qayb gali weysid hadhoodi markii gobonimo la helo ama maxaan ku yiraahdaa ma aragtay deegaanadiisa isku filnaado hadhoodi deegaankayga waa inaa xil u soo doonatid absolutely ma dhaceyso dadka jaaliyadaha dibadaha jiraan waxa uu sheegayaa ama Mareykan ha ahaadaan ama Yurub ha ahaadaan ama maxaan ku yiraahdaa Sweden meel doon digil maanta waxa la yiraahdaa digil mirflo maanta magacaas maadaama hadii la leeyahay digil mirflo maanta digil dadka ugu taajirsan weeyaan oo Soomaaliya dhan iska daa digil mirflo maanta dadka ugu taajirsan waay marka hal qof digil maanta wax walba uu sameey kara laakiin damiir xumo iyo maxaan ku yiraahdaa dayuusnimo ayaa meeshan dhigtay oo ay leeyihiin hal maanta hal qor hadaan gado oo nin lagu dilo oo aakhira li qabsana mu fiirin miya xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay maxaan ku man qutila duna maalihi fa huwa shahiid xadiiskaas macnaha intuu ka maray yaani qof gurigiisa looga imaaday nabi allah hadaan dilo ka waran hadaa dishid naaru galaya haduu idilo ka waran jannaad galaysa li'anna gurigaagu kugu imaaday billahi alaykum waxa idin sheegaya dadka digil la dhaho magacaas sheegto oo magacaas oo dhan sheegto inay kacaan deegaanadana kacaan oo maxaan ku deegaankooda difaacdaan oo maxaan ku yiraahdaa magacaas sheeganaya oo iimaanaya maanta magacaas la sheeganaya inay maxaan ku yiraahdaa difaacdaan loo baahan yahay wax walbana ay sameystaan aadi aadan idin salaamaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh